الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي waan idin salaamay meel kastoo aad kala joogtaan waqtigu insha Allah ha idin wacnaado asxaabi kusoo dhawaada horumar madbaqaaga channel oo maanta inoo wada cashar cusub cashirkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay insha Allah bariis maasha Allah kaale araga waxaan kuuli ood ka wada heli doontaan insha Allah bismillaahi kariim aadna u fudud ugu horeyn ba asxaabi waxaan jarjarayaa khudaartii basasha waan jarjaray xabuubtiina waan jarjaray barbarooni weeyaan kan aan imika jarjaray barbarooniga nooca akhtarkaas aad aragtaanba qof barbarooniyada nooca uu haystoba uu ku isticmaali karaa hadduuna haysana wuu iska dhaafi karaa ka akhtarka huruuda casaanka haddii aad mid un hayso waa kugu filan yahay haddii aad wada hayso okay haddii aanad barbarooniba haynina waxba dhib male waa iska dhaafi kartaa toonta ayaan saa u yaryareynayaa haddana toonta waa tumi kartaan mooyihii tibti yareed baad ku tumi kartaan mashiinkaad ku shiidi kartaan ama sidan baad u jarjaran kartaan toonta boodarka qofkii hayna wuu isticmaali karaa kan waa barbarooniga casaanka noociisa cas isagana waan ku darayaa insha Allah qofkii aan haynin wuu iska dhaafaya san hore u sheegay haddii ilaahay idhaahdo saasaan u yaryareyay khudaartii waxaan soo qaadanaynaa distiida dabkaan saarnay saliid yar baan ku shubnay saliidaan isticmaalaya waa olive waxoogaa yar hayl amudhadh laba qorfo yar iyo caleenta amba warqada qaarka marka intaa isku yar diiriyey oo saa iskugu yar rogay iyo saliidii waxoogaa yar basala ayaan kusoo daray basasha yar baan isku shaaxinaynaa iyo saliid iyo xawaashidii aan isku soo darnay daboolka yar saarana intay soo yar huurayaan intaas markay isku shawaxdo digaagii baan kusoo dhex ridayaa markaan digaaga kusoo dhex rido lugahaasaan maanta isticmaalayaa anigu laakiin nooc kastoo digaag ka mid aad isticmaali kartaa sadriga hadaad doonaysid lugaha gaagaaban digaagad dhammaystiran markaan saas maxayday afartaad lugood ayaan markaa isticmaalayaa markaan sidaas dista ugu rido waan insha Allah yar dabooli doonaa si ay uu usoo huuro oo usoo yar casaado asxaabey waa kaas inoo soo casaaday si fiican buu inoogu shawaxay maasha Allah markii intaan kala maqnayn waa yaro rogrogay dhinaca markuu ka casaaday dhinaci kalena usoo rogay markaasaas weeyaan maxay heeday waxaan ku daray liin dhanaantana jafafka ama qallalan oo nooca madow waxaan kusoo darayaa khudaartii aynu jarjarnay dhammaanteed halkaasaan kusoo shubaya waxba kamaan reebin markaan xaggaa kusoo wada shubo oo aan digaaga dushiisa soo saaro khudaartii aan soo jarjaranay waxaan sameynaya waan ku kala yar fidinayaa saasaan ugu kala fidinayaa si digaaga korkiisa ay u wada gaadho khudaartu markaan intaas saas isku gaargaarsiiyo waxaan kusoo darayaa macjuun barbarooni ama barbarooniga cas oo shiidan qofkii aan haysan barbarooniga cas oo shiidan yaanya shiishiid buu ku darsan karaa qofkii aan casaanka rabina waabuu iska dayn karaa laakiin maanta aniga waxoogaa waxaan doonayaa inuu in yar casaan noqdo markaa saasaan ugu daray saa darteed waa markaan saa u kala bixiyey waxaan ku yiri waan daboolayaa markaas waxoogaa baan doonayaa inuu isku soo yar shiilmaan khudaarta iyo digaagu markay isku soo yar shiilmaan ay soo shawaxaan waa kuwan soo shawaxay maasha Allah khudaartii dhan waataa wada degtay si fiican u shiilmatay xawaashidii oo dhan ayaan ku darayaa xawaashida waa calaa xasbi raqba ama waa xaween calaa ikhtiyaar qof walba siduu rabo xawaashidii markay noo soo shawaxeen oo noo soo shiilmeenna milixdii baan ku daray milixda markaan ku darayna waxaan kusoo dari doonaa insha Allah bismillaahi kariim biyo aan soo karkariyey ama aan soo fixiyey ama aan soo kuleeliyey biyaha waxoogaa waan soo yar kormarinayaa waxoogaa baan way bariiskan ku karsan doonaa haddii la yidhaahdo waxoogaa inoo soo karo asxaabay markuu inoo soo karay oo digaaga ilaa 25 daqiiqo ayuu karaayay maxay heday waxaan isku dayay inaan digaagii ka guro
wakaas digaagii waan ka gurayaa, biyihii baan ka dhex saarayaa saan horeba u sheegay. Waxaan ku karsanaynaa maraqaas ka baxay baan ku karsanaynaa bariiskii. Digaagiina waxaan ku ridayaa siiniyada furinka loogu galiyo cuntada si aan furinka u yargeliyo ama ofinka kolba sidii loo yaqaano. Markaan siiniyada saaro digaaga waxaan gelin doonaa ofinka darajada xaraarada 180 wakaas. Markaas saas buu yahay digaagii maasha Allah, caraftii quruxda waad aragtaan. Bas waxaan ula jeedaa inuu soo yar casaado. Waa kan bariiskii ayaan haddana kusoo shubay. Bariiska waan soo radiyey 5 saaco meelahaas ayuu radsanaa. Qofkii habeenkii sii radinayana waa okay, uu fiican yahay. Markaan radiyey 5 saaco aad baan haddana usoo maydhay. Bariiska waa nadiif maasha Allah. dabeetna anigaa kusoo dhex shubay distidii inoogu jiray maraqii digaaga aan ka saarnay. maasha Allah sidaasuu qurux u yahay udgoon. Maanta xaafada waxaan ku iri wax siduu u haysto waad yaabaysaan. waan daboolay markaa ha soo bislaado. asxaabay bariiskeena waa kaasuu inoo bislaaday maasha Allah. in yaroo naqan oo biyaha hoosta kaga sii jirta wax yar. markaa waxaan sameyn doonaa haddii la kala waxayro sabiibo ayaan dusha kaga soo shushubayaa. sabiibta la shiilo oo saliidda lagu shiilo waxoogaa way yar adkaataa. marka waxaan doonayaa inaanay iga adkaanin. waan soo maydhay dabeetna halkaasaan ku yar huurinayaa. in yar baan daboolayaa haddii la yiraahdo. asxaabey wataas sabiibtiina way noo soo yar huurtay. weli bariiskiina biyarba kusii huursan. digaagiyo soo casaaday waa kan maasha Allah tabaaraka raxmaan. digaagii baan dib ugu soo celiyay bariiska sidaad arkaysaan. waxaan doonayaa inuu isku yar uumismo ama isku yar bukhaar isku yar huuro yacnihii. markaa daboolka saar. markaan daboolkii saarin waxoogaa soo yar huurayna waa kan maasha Allah tabaaraka raxmaan. halkaa waxaan saaray bool yar. boolkan yar markaas saliid baan ku shubayaa. boolka yar waa nadiif waan soo dhaqay. saliidaa yar ayaan ku shubayaa dhinaca kale. waxaa dabka ii saaran xabad yaroo dhuxula oo ii baxaysa. markay soo cadaato xabada yar dhuxusha ayaan soo qaadayaa. markaa saliidaan dhex dhigayaa si ay qiiq igu samayso. wataa qiiqii wada arkaysaan. daboolka jag ku sii maasha Allah. halkaasuu bukhaarkii qiiquuna ku baxay. waa kan kasoo qiiqii markuu ka dhammaaday waaniga ka qaaday. sidaas ayuu bariiskeeni diyaar inoogu yahay maasha Allah tabaaraka raxmaan. hadda waxaan samaysan doonaa oo inoo harsan in aynu bileedhkii taqdiimka aan ku ridno. aad iyo aad buu maxaahaday u fudud yahay saad aragtaan maasha Allah. saxniga waa kan aan ku guro sixniga maasha Allah tabaaraka raxmaan. asxaabi saas ayuu inoogu dhan yahay darsigeenii. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.